wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayo arday baratay cilmiga saxaafadda kana baratay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed sida warkan uu ku sii dhameystirayo Ayuub Cabdiraxiin Muuse 25 kan arday oo dhameystay cilmiga saxaafadda ayaa shahaadada dibloomada ka qaatay kulliyadda cilmiga bulshada ee jaamacadda ummadda kaas oo ay iska kaashadeen hay'adaha IMS iyo FOYO iyo jaamacadda ummadda. Ardayda dhameystay tababarkan ayaa muddo sanad ah qaatay cilmiga saxaafadda kuwaas oo intooda badan ka howlgala warbaahinta dawladda iyo tan madaxa bannaan. Mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya, maamulka jaamacadda ummadda, macallimiin, arday iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay munaasabadan ay ku qalin bedelanayeen ardaydan. Wakiilka hay'adaha IMS iyo FOYO ee Soomaaliya, Abuukar Albadri, ayaa mar kale ku celiyay inay sii dardargelin doonaan wada shaqaynta kala dhaxaysa jaamacadda ummadda gaar ahaan kulliyadda cilmiga bulshada. waxaan ku ballanay laba shay inaan soo qabanno. kan koowaad wuxuu ahaa curriculumka ama manhajka in laga caawiyo diyaarintiisa meeshii ugu fiicnaydayna maraysaa saan u malaynaynaa goobta kadib manhajkii departmentiga saxaafadda oo 2 sano lagu soo shaqaynayay ama ka badan uu soo dhammaystiri doonaa. hormuudka kulliyadda cilmiga bulshada ee jaamacadda ummadda Professor Cabdulqaadir Maxamed Ciisow ayaa ka sheekeeyay marxaladihii ay soo mareen dufcaddii koowaad ee tababarkan muddada sanadka ah qaatay. kulliyadda cilmiga bulshada waxay ka kooban tahay 3 qaybood, 3 departments: Department of Journalism, Department of Political Science, and Department of Social Work. inta markaa wadnay ayaa injineer Yariso Allah yarxam, Professor Xildhibaan Khalid Maco, wasiir ku-xigeenka wasaaradda al-Cadaala iyo agaasime Cabdiraxiin waxaan ka fikirnay siduu aad macluumaad noo sheegayay sidii ardada suxufiyiinta shaqaysa in tababar loo furo qaabka loo furo. Xildhibaan Khalid Maco Cabdulqaadir ayaa ardayda ku bogaadiyay dadaalka ay geliyeen inay xoojiyaan aqoontooda saxaafadeed waxaana ugu hambalyeeyay guusha ay gaareen. ardayda waxaan leeyahay congratulations hambalyo. waxaa idinka sugayay waxaa waaye waajibaad aad u weyn mujtamacan waxaad adeegsanaysaan saxaafadda waxaa waaye mid laba af leh waaye adiga kugu xiran tahay afkaasaa u adeegsatid khalikaasaa u adeegsatid laakiin mas'uuliyaddaada iyo mar kasto taasaa waxa lagula xisaabtami doono ilaahay xaggiisa iyo maxaan ku yidhahdaa iyo mujtamaca laftarkiisa wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cismaan Abuukar Dube ayaa ardayda qalin bedelatay kula dardaarmay inay halkooda ka sii wadaan dadaalka waxaana uu sheegay in loo baahan yahay inay kobciyaan aqoontooda saxaafadeed. tiim noqda isjeclaada walaalo noqda dadaala waxbarashadana halkaa ka sii wada. ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ballan qaado sidii halkan laga dhawaajiyay agaasime Cabdiraxiimna sheegay dadaalkayga waxaan isugu geyn doonaa ardayda kulliyadda saxaafaddu inay noqdaan markay soo baxaan arday ka tirsan wasaaradda warfaafinta sida imika tababarka ugu qaataan. sanadka hore ay ahayd kadib markii jaamacadda ummadda oo kaashanaysa hay'adaha IMS iyo FOYO ay ku dhawaaqeen inay qaadanayaan arday barata cilmiga saxaafadda gaar ahaan shahaadada dibloomada. Ayuub Cabdiraxiin Maxamed, warbaahinta qaranka, Muqdisho.